marka koowaad waxaan u mahadcelinaa agaasinkii hore madaxtooyada qaranka waxa aan rabaa inaan iraahdo shaqo qaran ayaa soo qabateen qarankana meel kale oo ka sii muhiimsan ayaan rajaynaynaa insha Allah inaad uga shaqeyn doontaan oo shaqada qaranka halkeeda aad ka sii wadi doontaan waxaan rabaa inaan ka mahadceliyo sidii wanaagsanayd muddadii la soo dhaafay aad u maamusheen madaxtooyadii qaranka shaqaalaha iyo guud ahaan shaqadii mataqaana dawladda baad u soo wadeen waxaan annagana rajaynaynaa insha Allah inaan meeshii ka sii wadno oo shaqadii dawladda halkeeda ay ka sii socoto gaar ahaan xafiiskii madaxtooyada shaqadii dawladda u hayay halkeeda ay ka sii socoto shaqaalihii halkeeda mataqaana halkooda ay shaqada ka sii wadaan waxaan u ballan qaadaynaa insha Allah inaan mataqaana aan si fiican u wada shaqeyn doono haddii alla idmo sidii adinkaba u wada shaqeyseen waxaan kale u ballan qaadaynaa in ma aragtay aan qofna lagu dulmin doonin shaqada isla markaasna qolo cusubaa timide qolaa baxaysa aanay ahayn dadka oo farsamo yaqaanada ah oo waaxyaha xafiisyada mataqaana xafiiskan ka shaqeynaya ay shaqadooda sidooda u wadan doonaan ay noqon doonto waxa la isku abaalmariyo qof walba iyo shaqadiisa iyo sida uu qabsado haddii alla idmo meeshaas iyo taladaas iyo dardaarankaas ayaan isku ognahay agaasimo maxamed dheere si gaar ah ayuu ii orient gareeyay asbuucii la soo dhaafay si gaar ah mataqaana isu wareysanay oo ma aragtay talooyin badan iga siiyay xafiiska iyo dabcan waxyaabihii mataqaana u soo qabsoomay waxa hadda mataqaana u qorsheysnaa iyo culeysyadii jiray meelaha ay ka imaanayeen iyo sida loo xallin karo ayuu talooyin badan iga siiyay adinkana waa ku mahadsantihiin xafiiskan dhowrka qaranka oo goobjoog ka ah shaqadan mataqaana qaran ee maanta dhacdayna sidoo kale marka insha Allah waxaan rajaynaynaa dawlad horu socod leh oo halkii ay hadda joogtay mataqaana laga sii qaado wax lagu sii daro oo ma aragtay marka maalinta aan wareejinaynana meel halkan ka sii fiican sida hadda ay tahay ka sii fiican oo dabcan wixii hore loo soo qabto wanaagsan wax lagu sii daray ayaan rajaynaynaa insha Allah